kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa garoonkeeda Camp Nou guul kaga gaartay kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad kadib markii ay kaga adkaatay 2-1 kulan qayb ka ah horyaalka La Liga ee wadanka Spain. Daqiiqadii 27aad kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kadib markii uu 1-0 ka dhigay William Joros, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiisa Cristiano Ronaldo. Daqiiqadii 31aad naadiga kubadda cagta ee Barcelona ayaa dhalisay goolka barbardhaca, waxaana 1-1 ka dhigay ciyaaryahanka wadanka Spain ee Jordi Alba. daqiiqadii 43aad markii ciyaartu ahayd kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kadib markii 1-2 ka dhigay xidiga wadanka horan Everinka de Jong. laakiin ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxa ay ku soo dhamaatay 2-1 oo ay guul ku gaadhay kooxda kubadda cagta Barcelona oo ay ka adkaatay Real Sociedad oo marti ugu ahayd garoonka Camp Nou. kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa barbaro la dhaafi weysay kooxda Southampton oo marti ugu ahayd garoonkeeda Emirates kadib markii ay ku kala baxeen 1-1 kulan qayb ka ah horyaalka Premier League ee wadanka England. qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hogaaminaysay kooxda martida ahayd ee Southampton. daqiiqadii 18aad kooxda Southampton ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kadib markii 1-0 ka dhigay xidiga Theo Walcott oo goolkan ka caawiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Jay Adams. daqiiqadii 52aad kooxda Arsenal ayaa dhalisay goolka barbardhaca, waxaana 1-1 ka dhigay Pierre-Emerick Aubameyang oo xilli uu goolkan ka caawiyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Naketh. ugu dambeyntiina ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay barbaro 1-1 ah oo ay ku kala baxeen labada kooxood ee Arsenal iyo Southampton kadib kulan aad u xiiso badnaa oo ay ku wada ciyaareen garoonka Emirates Stadium. kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa la wareegtay hoggaanka horyaalka Premier League ee wadanka England kadib markii ay ku garaacday kooxda Tottenham Hotspur 2-1 xilli ay labada kooxood ku dagaalamayeen kulamada horyaalka Premier League ee wadanka England. qaybta hore ee kulanka adag Liverpool iyo Tottenham Hotspur ayaa lagu kala nastay 1-1 oo labada kooxood isla dhaafi waayeen. daqiiqadii 26aad naadiga Liverpool ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta, waxaana 1-0 ka dhigay xidiga wadanka Masar Mohamed Salah. laakiin daqiiqadii 33aad kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa dhalisay goolka barbardhaca, waxaana 1-1 ka dhigay ciyaaryahanka lagu magacaabo Hon Min-son kadib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiisa Gino Ligelzo. daqiiqadii 9aad kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kadib markii uu 1-2 ka dhigay Berto Firmino xilli uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiisa Andre Robertson. ugu dambeyntiina ciyaarta ayaa ku soo ilaatay 2-1 oo Liverpool guul kaga gaadhay naadiga Tottenham oo marti ugu ahayd garoonka Anfield Road ee gobolka Merseyside xilli naadiga Reds ay la wareegtay hoggaanka horyaalka Premier League kadib markii ay ururistay 28 dhibcood. naadiga kubadda cagta ee Tottenham ay 25 dhibcood iyaduna ku fadhiisatay kaalinta labaad.